بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كهاد لا مجاعيجا مجاع جالية الصوماليات كنا الوضع كان كفر أفريقيا يولي بمجاع قدوميها قدية مرتجلينتا إنجنير أبو كرجنجب waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku sugan dalkan South Africa gaar ahaan jaaliyada ku sugan ku nool magaalada Nelspruit walaalayaal sida ogsoontihiinba waxa saddexdii maalmood ee la soo dhaafay in la joogay oo wadankan South Africa ku sugnaa xulka qaranka Soomaaliyeed oo ka qayb galaya ciyaarihii isreereebka qaaradda Afrika maalintii labaadna waxa ay ku sugan yihiin magaalada Nelspruit halkaas oo ay maalinta talaadada kula ciyaari doonaan wareegii labaad xulka qaranka ee Eswatini oo halkan uu home ground u yahay. marka walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa oo aan idin ogeysiinaynaa fadlan in aad ka soo qayb gashaan ciyaarta oo aad daawataan oo aad dhiirigelisaan walaalihiina Soomaaliyeed ee meesha fog uga yimid sida ay qarankooda iyo dadkoodaba u matalaan taasoo ah waajib qof walba oo Soomaali ah saaran annagana nasaaran qof walba oo Soomaaliya saaran. marka waxaan idinka codsanaynaa in kastoo ay tahay maalin shaqo dadka inta badan ay shaqooyin ku maqan yihiin waxaan idinka codsanaynaa qof kasta oo soo haleeli kara ama imaan kara inuu ka soo qayb galo maalinta talaadada oo ay bishu tahay 26 March 9 saac galabnimo ama 3 galabnimo qof kastaba soo u yaqaano in aad ka soo qayb gashaan ciyaartaas oo ka dhici doonta garoonka Pompela Stadium ee magaalada Nelspruit. marka waa codsi labaad oo aan u gudbinayno dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee South Africa ku nool maanta heerka uu sportigeena marayo heerka uu qarankeena marayo heerka uu marayo xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliyeed waa mid aad iyo aad uga wanaagsan 10 sano ee la soo dhaafay. marka qof walba oo Soomaali ah waajibka waa waajibna saaran annaga awoodda qarankeena waxa uu leeyahay inta awoodda dawladnimadeena ay leegtahay. waxaan idin ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool South Africa mar walbaba waxa aan martigelinaa oo aanu soo dhaweynaa cid walba oo noo imaatay wiilashan walaaladeena noo yimidna waxaan idin ka codsanaynaa in aad ka soo qayb gashaan si aad u imaan kartaan iyo sida ay noqotaba waana mahadsantiin.